السلام عليكم asxaabta email kasoo dunida ka joogtaan habeen wanaagsan ku soo wada caawa iyo ciyaaraha waxaanu soo qaadan doonaa akhbaaraadka ugu dambeeyay kubadda cagta oo ay ku jiraan warbixinada shirarkii jiraa'id galabta tababarayaasha qaar sida tababaraha kooxda Chelsea ciyaar adag culus oo sugaysa Aston Villa ay la ciyaarayaan waxaanu eegi doonaa waxyaabaha ku saabsan Premier League iyo Arsenal iyo Manchester City kala iibsiga ciyaaro baanu ka marnayn arrimaha Barcelona ayaanu sidoo kale soo qaadan doonaa Ronaldo من ميسي iyo kuwa kale sababta subscribe kuna saar ku jaan qofsal ku jiray sheertii laagta muskada kan saxabta la ciyaaru jecel bal barnaamijkeenu gaarsiina way salaamada maqaarkii baan eegi doonaa waxyaan habeen wanaagsan baan idin leeyahay asxaabtay bal waxyaabaha ugu weyn habeenka Kamal Daarigu baan eegi doonaayo ciyaaru waxa ugu weyn tababaraha kooxda Chelsea ayaa ka farxiyay taageerayaasha Blue waxa uu sheegay toddobaadkan in reer ay yihiin Estavio iyo Liam Delap labaduba inay soo laabteen ayuu sheegay kuwa uu bariyahan ka maqnaa kooxda sidoo kale wuxuu sheegay Master Cole Palmer in ugu dambeyntii 90 daqiiqo uu awoodi karo inuu ciyaaro markii ugu horeysay muddo dheer kadib 3 bil kadib markii ugu horeysay wuxuu u socday walaal toddobaadka kan in uu dhameysto ciyaarta oo dhan 90 daqiiqo marka radio inuu 90 daqiiqo ninkaas ciyaaru ka tuuro bariyahan dhan tababaru ilaalinay runtii in yar buu ciyaarsiinayay wuxuu ka hor imaan doonaa ninka la yiraahdo Morgan Rogers ayuu ka hor imaan doonaa wariyaashii ana furjiyay waxa la bal ka waran bariyahan bal markaa uu liita Rogerska wax kaleynaya bal ka waran hadii lagu dhihi lahaa Rogers ku bedelo Palmer markaas surmaya Cole Palmer waxa weeyaan cidna kuma bedesheen buu yirmana ma yiri waan jeclahay Cole waana ciyaaryahankii ugu macna marka ninka la Rogers ayaantan waa weynka waa ninka Manchester u duubay goolasho weeyaan runtii marka wuxuu yiri tababaru ciyaaryahankii soo ciyaaryahankiisa ixtiraamay wuxuu yiri ya mayo kama dorsan Rogers buu yiri laacibkiga Palmer sidoo kale tababaru wuxuu sheegay in ama yaani waliba tababaru Chelsea waxa jiri doona runtii toddobaadkan haddana in ciyaartan uu ka ganaxnaan doono runtii ya Enzo Maresca waxa weeyaan jaalihii labaad ee Sisaka uu qaatay maalin dhaweyd taasoo ka dhigan ciyaartii bareejaha bay dhacday midaas Newcastle taasoo waxay ka dhigan tahay marka inaanu ciyaartan binjiga imaan doonin uu seegi doono ciyaarta Aston Villa sidoo kale wuxuu ka hadlay ciyaaryahanka koox u dhan lagu garaacay ee Samayo oo Manchester City doortay saacad ugu dambeeyay tababaraha Chelsea mar wax laga weydiiyo wuxuu yiri taasuu kama hadlayo macnaha ciyaaryahanada aan haysto baan ku qanacsanahay ya uma baahni Samayo kala jeeda runtii marka taas waa taa marka Samayo asaga toddobaadka kan ayaa la dhameystiray heshiiskiisa ugu wareegi lahaa Manchester City United wuxuu ku yiri maya Liverpool inta soo ordinba oo lacag soo diyaarsanayaan City baa ninkii ku hormartay marka City ninkan marka uu ku sii biray garbahooda zaid bay sii noqdeen falanqayaashu qaar marka waxay leeyihiin ya Samayo inuu City doorto qalad bay ku hayd maxay yeelay yaani wuxuu noqonaa hadda way leeyihiin runtii nin isbuucna ciyaara isbuucna aan ciyaarin ciyaaryahanadu qaar way ka ordaan isbuucna in la ciyaarsiyo haddana isbuuc kan loo agli yaani la ciyaarsiin isbuuc la ciyaarsiyo mid kale aan la ciyaarsiin waxa jira rag isbuuc kasta lagu tashto ciyaara marka wuxuu leeyahay in City uu tagay yaani oo wada garba inay buuxaan حتى مركا لا فيري جلسن ودا غربا بوحي ليفل اوريدي غربيال kala haystaan runtii marka Samayo City sida ku doortay already Savinho Doku ninkan jerki la leeyahay runtii Samayo waxa weeyaan waxay leeyihiin inuu Spurs doorta u baa u fiicneed bay leeyihiin runtii halkaas waxay aaminsan yihiin falanqayaasha inuu level kale ku sii gaari lahaa laakiin hadda khalad bay ku tahay bay leeyihiin Samayo in uu City doorto marka waa arki doona kulay laakiin ilaa hadda City iyada ayaa qarka u saaran runtii Pep Guardiola waxa weeyaan waxa social media looga maadsanaya ciyaaryahanada City markay soo laabtaan toddobaadkan soo socda kulay wuxuu yiri ciyaaryahan kastaba miisaankiisa ag dhigaya amal waxa qof kasta iska soo doobaya ciyaaryahanada oo yaani Man City yaani ayaa la jira waxay leeyihiin warniyo kaliya taliya tahay miisaanka kor باو ميزانka kor u talay xiriirada Man City labaatan maalmood baxay wuxuu yiri dadka qaar uu yiri ciidahan oo shaqaladii iyo markay aadaan uu yiri ya wuxuu yiri waa tii ay khamri iyo balaayinta ka soo dhargaan iyo cunto isku soo xaqaan wuxuu yiri ciyaaryahankii kiilo ku soo kordho 2 kiilo ama 3 kiilo hilib ku soo kordho yiri yaani jirkiisa ilama safray iska badaa inuu ciyaare wuxuu yiri mid kale markay soo laabanayaan buuri xagaas ba miisaanka u dhigaya marka ciyaaryahanada Man City wala suuga macna qof kasta waa qarqaraya inta wuxuu mariyay xataa ciyaaryahanada Man City hadda يعني باشالك لو فسحay saddex maalmood wuxuu si day off baashaal uu macna soo shaqaleeyo laakiin qof kastaba dhunta uu cabsanayo wuxuu leeyahay arada balaa isku cunto armeentana biraha ma sameeyay sidee ya odagii miisaana uu ku dhigaya kulli markay soo laabtaan miisaanka kor adina miisaanka koriya kor miisaanka
marka ninkii tan cili way Pep Guardiola aniga miisaankaas aan kala baxayna wuri ima ciyaari doono ciyaar soo aadan tobaadkan uu leeyahay runtii marka taas waa taa kulli Arsenal waan sugnaa waa nimanka hogaaminaya Premier League ee Jamligu Sisakan meel walbaba Sisaka Arsenal sanadkan tacab iyo tirbel ma jiri doontaa leeyahay ugu yaraan Arsenal jalmad haday noqoto taa soo xareysanaysa Sisakan xalna san final bay gaarin waxay ku aadeen Chelsea oo ayba ka adag yihiin maxay yeelay 8 ciyaar soo dhaafay Chelsea Arsenal ciyaareen tartamadooda Chelsea marna kama u badin Arsenal marka sanadkan wax wala Arsenal waa soo jajaafanaysa wax wala Arsenal sanadkan keeni doonto yaa loo maleynaya labadan tartan ee ugu weyna hogaanka loo haya Arsenal wariyo Arsenal iskaar samaan illa iminku waxaan qabaa in Arsenal ay ku guuleysan karto Premier League season laakiin ma diidani halis weyn ay ka soo socoto Manchester City sidoo kale Liverpool qudoodu ma fogaaniyo waxa meel mala kala jiriyaa qay halis way ka iman karaa meelahaas marka Arsenal maalin dhexdaas marka dhowr isbuuc dib marka loo laabto cidna ma la tartamayn laakiin hadda tartan baa jira Pep Guardiola sameeyo doontay waxay ka dhigan tahay mataqaan wuxuu leeyahay warimankan xabadkan ka afduubo kadibna kooxdan iska casib uu isleeyahay ka tag macnaa Soomaalidu wuxuu mataqaana City aniga hal subax oo aan sanafo oo hurdada ugu xumaatay baa waxaan dhihi karaa warnimo City ma soo socdo tababari ka kala doorta yaan dhihi doonaa wuri haddaba tababar si diyaarsan wuri hal subax oo aanu xanaaqsan iska soo kacbad ku xirantiin buu shaqadiina ku joojin karaa marka wuxuu rabaa Pep inuu ka horyal ka dafo hayeeshee laakiin Arsenal hadda marka waa lagu soo kacay yaani tartan culus bay dareemayaan balse still Arsenal waa koox ku guuleysan karta season kaano taas waa taa ninka xalin waxay u soo bixin Carabao Cup-ka hero waxa noqday mataqaana ninka la yiraahdo Master Mbaye Keba tartankan Carabao Cup-ka tartankiisa waa markastaba hawshiisa waxaan 2009kii waa u diiday inuu ciyaarta ka soo baxo buuq buudli soo bax ninkii diiday waa 2019 adduunka casri yahay ninkii soo bax ee diiday ninkaas bedel diiday waa adduunka waa la yahay wali ciyaar kaamira dhan socota adduunka dhan daawanayo yiri ma soo baxay aniga waa jooga ciyaarta xoogiisu ku ciyaaray islaaminkaas kooxda waa laga badiyay final buu ahaa 2022 hadana Carabao Cup wuxuu yiri penalty antura wuu khasaariyay waxa weeyaan hadana penalty kooxdii looga badiyay xalay laakiin hero buu ku noqday 2025 hal rigoor maantana si loogu dhalin hal xabbu mar buu nafis geliyo hal rigoor u badbaadiyo taasna waa taa ciyaaryahannadan Ingiriiska u dhashay waxa weeyaan waxay dareemayaan yani frustration inkastoo ay u shidneed maalmihii ugu dambeeyay banig u fiican ay siiska soo dhaafay ay sameeyeen siisakan wax badan ma ciyaarayaan hadda Nwaneri oo kale siisakan marna lagu soo bilaabay safka koowaad ee kooxda Premier League Arsenal Cobmain oo kale wali safkooda lagu soo bilaabay Premier League kooxda United George saas oo kale weeyaan iyo ninka la yiraahdo Luis xilli ay rajeynayaan in World Cup laga waco haddana tababarayaashooda ku kacsan oo taawata Bruno Fernandes iyo Cobmain tababaraha Manchester Club wuxuu xaqiijiyay inay seegi doonaan ciyaarta Newcastle marka Kobe iyo Brunona waxay la tahawuleen runtii Cobmain ayaa gordhow soo laaban doono marka taas waa taa arrimaha Barcelona waxa la sheegay Roberto Lewandowski xagga Barcelona si joogi doono Roberto waa joogay xagga Barcelona inkastoo muddooyinka ugu dambeeyay dhan labadii bilood saddex bilood ugu dambeeyay la lahaa Lewandowski Barcelona dhamaad xagga dambe Barcelona si joogi doono ay warkaaymo ninkaas sheekada dhan bedelay wuxuu yiri hadaan lacagtiina ay keenay ka warnay mushaarkan la macnaa migu haystiino hadaan mushaarkan faraha badan aad isiisaan aad yareysaan oo xogaayro aniga ilmaha soor iyo caloole ugu dhigto hadaad isiisaan soo caadi maahan waa shiridi u tahay Roberto Lewandowski waliba wargeysadu waxay leeyihiin marka la fiiriyo shape-kiisa xagga dambe still uu caawin kara Barcelona xitaa isagoo duq ah Master Robert Lewandowski marka wararka ugu dambeeyay waxay sheegayaan Lewandowski inuu rabo inuu Barcelona sii joogo season ka soo socda hadana season kan inuu Barcelona joogo doonaya xilli season kan ugu heshiiskiisa xagga dambe inuu baxay ahayd waxuu diyaar u yahay inuu mushaaraadkiisa yareeyo ayuu diyaar u yahay taas waa taa hada ciyaartooyda qaar Barcelona waxay rabaan in Messi uu dib kooxda ugu soo laabto hadii la sameyn karo January odaga maalmo yar inuu ciyaartooyga hadda joogo inuu la ciyaaro bay rabaan sida Pedri oo kale wuxuu yiri waan jeclaan lahaa wariye Messi inaan dib markale ula ciyaaro dabcan waa rabi lahaa wari laakiin madaxweynaha hadda jooga kooxda wuxuu yiri Messi waqtigiisa waa soo dhamaaday jabtarkiisa micnaha Messi waa ka gudubnay waa waqti dheer baan ka gudubweynay Messi inaan ku tiirsanaano Messi aan u soo celinna hadda jiilka maanta hadda ay haysataan oo ku qanacsantiin hadda Messi soo laabto cid idinka qaadanaysa lama yamaali waxaas ma laha wax idinka qaadanaya ma laha maalinta Ronaldo oo ka baxay Madrid dad badan oo Madrid taageera way awood way Madrid inay daawadaan daacadii markuu Messi ka tagayna kooxda kubadda cagta Barcelona way awood way dadka inay Barcelona daawadaan qaar yar baa isaga mintiday oo ilmahaas academy hadda ku weynaada kooxda iyagoo yar ka fiirsanay laakiin dhibay ku ahayd dadka Barcelona u soo barteen madax dagsi
mar Ronaldinho madax u soo dejinayo oo yacni xirfadiisa ku madadaalinayo kadib Messi inta sana madadaalinay wuxuu bartay marka Barca qof madadaaliya ilmihii marka wala aqbali waayay marka waxaas waxa la dhiiga macnaha Messi wax la ku dhacay waxa Messi ayn ma ku soconayo marka wuxuu leeyahay warinkaas waa ka gudubnay hadda nagu soo celinay maalweed jabtarka Messi waa xirnuri ma soo laabanayo laakiin nin oo doorashada Barca u taagan oo adiga ugu yaraan February March meelaha wuxuu leeyahay hadii aniga ii doorataan Messi aan soo celinay ugu leeyahay runtii si dadka ku kasbanaya marka hadda duu Messi soo laabto waxa Messi duu soo laabto ma aqbalaya maalkan iyo waxaan ii rafiyaan ya aqbali kara ma cid aqbalaysa malaha waxaad arkaysaan xirfad saafi iyo nadiif arkaysaan oo aan biyo lagu darine walaalo waa caana aan gas biyo lagu siin baad arkaysaa yaa u baahan ilmaha meelaha orordaya xataa daada haduu jira xataa Lionel Messi ya lagama cid dambe oo dib ma aqbalaysa malaha hadii Messi amaadiis yar ku soo aado kooxda maalmaha yar idin la joogo xataa adigu waa mucjizayna waa kasto marada ka dhigay sisakan 73 gool ayaa lagu leeyahay yani Lionel Messi cid ku lug leh waa la waayay dhalis caawin dad ciyaaryahanada maanta jira banooniga xataa midas way sameeyeen yani dhalinyarada hadda ma waqtigan jooga ayaan ka hadlaya siis maalwada la soo qoray 72 gool ku lug lahaansha ayuu sameeyay hatta Haaland iyo Mbappe iyo ka badan yahay runtii marka odaga si uu shaqaysan kara marka haduu odaga yimaado way idinku adkaan doontaa marka hadhow kulmada markuu isaga maqan yahay Messi adina tiraadaan araa Messi yaa qay Messi duusan joogo meesha daawasho maalin tiraadaan marka hadda wixiini waajac bursateen ku qanacsanaada dhinaca kale waxa weeyaan Bedri wuxuu qabaa in tababaro World Class-na uu Barca joogo waa ninka la yiraahdo Hans Felix dhinaca kale Dizazi ayaa Barca loo bandhigay baa leerontii Dizazi ma qaadanaysan sewa shubka aba ninkan shubba jirta maxay ku nacday ninkan mis waa tarba qalad waa ninkan xoogiisa isma laha iyo وانا اسبتاليد حوغاس دساسي ومقين ايدو الله يجوا مقل جريد داوع وكو مقين iyo يا كلي برشلونه waxa weeyaan difaac bay Sacuudi ma raadinayaan Aruqo bay horta bariyaan foomkiisa fiirinayaan haday ka dareemaan Aruqo inaan la jiidi karin difaacna soo kataan beeraan madaxda kale tobar Barca wuxuu yiri hadaan rabin in jimli ku guuleysano in difaac ku soo darsanaa wuri hadhow hay eedin wuri meeshaan difaac ma joogo macna marka disaasi baan war ku sheegayaan Sacuudi dambeeyay kooxda loo bandhigayo taasna waata dhinaca kale hooyaan Jorginho Rodriguez ayaa uu Sacuudi dambeeyay hadashay ugu dambeyntii waxay tiri in ma taqaana runtii 10 sano odaga aan la joogay Cristiano kala jeeda ugu dambeyntii tan way cadaalad bay tiri in Faranti ku fadhiya 3 milyan uu igiliyo ugu dambeyntiina heshiiskan amahda ah shaqul gaal weeyaan amaha isku noolyihiin heshiiska rasmi laga dhigay sida Benonigo kale yani gabi ahaan buu guursado 10 sano u soo bareeyay tirninka kan warkan buu ka sugayay tirmina yani muddada marka la eego muddada ninkan aan ka sugay maalin u dhigi doono waan ku guursanayaa 10 sano laga jooga alxamu waxay leedahay tan waa cadaalad bay leedahay inuu Farantis qaalina ii geliyo ina guursado World Cup kadib ayaa uu rajeynay odagu June iyo July baa la filayaa runtii marka waxa weeyaan 10 sano ay wada joogeen Jorginho wuxuu kaftantay marka tan inay waqti dheer kadib ay sugaysay cadaalad ay tahay aad bay u shaqtay Farantis odagu u geliyay kameen filayn asaga xataa kamay ku dhacday ku leeyahay runtii حتى waxay tiri Farantigu ii gelay xataa manu fiirin ilaa iyo maalinta xigta mooyaane manu fiirin makiiba cabada ku dhahaystiri oo ku guursanaya ya waxa weeyaan waxa midaas ku timaaday nin saaxiib oo Faranti u keenay kadib ilmihiiso labadiisa gabdhood baa dhiirigeliyay ku yiri aabe ma hooyabad Faranti u gelinaysa caawa ilmaha le baaska u dhigay mooyaan habarta ninkan u soo soconba inuu u caamado ya marka waxa uu yiri hadiiba caawa waa ilmaha saas taagayin waa xilliga ugu fiicnaa kadib wuxuu yiri inaan guursan rabaa ya marka waxay soo hayaan laba caruura Alena Osteeda iyo Belo 4 inta kale caruur GR 15 labada mataano Matteo Eva oo 8 odagu kuwaasna waxa weeyaan iga soo qaad weeyaan ilmihii bacriminta lagu dhalay adiga 5 caruur baa odagu gabadha ay u haysaa runtii guud ahaan marka waxa weeyaan Cristiano Ronaldo waxa uu rabaa gabadha inuu World Cup kadib guursado waliba wuxuu rajeynayaa asagoo World Cup ku guuleystay oo abaalmarinka weyn ka maqan in uu guurka dhigtana uu doonayo taasna waa tamar gabadhu waxay leedahay waa ku haraaday leedahay runtii waa ku rafaaday 10 sano baan sugay ereyga ka inuu yiraahday leedahay waa ka waliba Sacuudi dambe wuxuu muuqdaan diyaarsanay hadda meel ay waqti iyo jawi fiican ku qaataan dhulkan oo ma taqaana jasiirada ah ee biyaha ku hareeraysan yihiin bay waxay rabaan inay labadooda ku noolaan Sacuudi waxa la sheegay 2 vilo oo qaaliya inay ka iibsadeen meel Sacuudi ku taala oo jasiirad ah oo biyo ku wada hareeraysan yihiin
oo la yiraahdo Najuma midna waxaa lagu iibiyey 3 milyan midna waxaa lagu iibiyey 4.5 milyan Ronaldo marka la fiiriyo lacagtaas easy bay u tahay sababtoo ah waa ninka mushaaraad 2 sano ka qaadan doona Carabta Sacuudiga 492 milyan ah marka halkaas ay waqti ugu qaataan halkaas kaliya waxaa lagu tagi karaa in diyaaradaha oo xeebaha baa lagu tagi karaa bis isagoo waxaa lagu tagi karaa doon si kale laguma tagi karo waa jasiirad xiran waa oo biyo ah bilooyin ku dhex yaalaan marka waa ka 800 oo meel bayna u jirtaa Riyadh marka meesha waa meel lagu talgalay dadka qaniga iyo dadka waaweynka ah marka waxa weeyaan odagu inuu gabadha dadka dhan kala dhex buuxo doonay familkiiso buuq iyo yani iyo sawaxankooda uu kaga gudbo habeenka haduu gurigaas u hooyana doon iyo diyaarad inuu ku tago doonayayo taasna waa taa kii Enrique ana waa ka isaga gabadhii u guri Lyon halka buu ku beeraya ma ilaabi kartay 2001 waa marka kaliya taariikhda ciyaaryahanka Ingiriiska aan aragnay ku guuleysanay Ballon d'Or يعني كي ugu dambeeyay waa Michael Owen sanadkaas ugu garan taqana Ballon d'Or Raul Oliver Kahn David Beckham Francesco Totti Luis Figo Rivaldo Shevchenko Thierry Henry Zidane alla dadkii hore magacyo weynaa yaa maxay dadkaas magacyadan ninkii berigaas yaa shineemo u gali jiray oo lacag ka dhiibi jiray baa dareemay dadkan inay Bruniga dad odayaal ka ahaayeen magacyada markay miiskooda tartamayaan yaa waliba dadkan markaad dhala ka daawanayso iyo Bruni xiisi qiimo u lahaa maantana iyadoo dhaladii qofka guriga u taalo ciyaaruhu xamaasadii qiimo ma leh waa iska jacbursan waa iska jiidan la mooyaane maqaar waa horeeyay maqaarkii shilmaadkii loo dhiibin jiray macaana kii shilmaadka loo dhiibin jiray loo gali jiray daawasho yaa macaa runtii marka law ku wayaan dadkan meesha ku kulmay waa asxaabteena